With Issue ICT Channel waxaad ka baran kartaa wax walba oo la xiriira tiknoolajiyada. Haddaad ku cusub tahay channelkeena, fadlan inoo saar subscribe. Casharkan waxaan ku baran doonaa sidaad ku soo saari lahayd people icon. Waa maxay people icon? People icon hadaad doonayso sidee ku soo saari kartaa people icon kaasoo ah app muhiim ah oo uu leeyahay Windows 10. Maxaase loo isticmaalaa people icon? Ma doonaysaa inaad la xiriirto dadka khaaska ku ah mar kasta si fudud. Si aad u soo saarto taskbar ayaad klikday, kadib waxaad dooranay show people on the taskbar. Asaga ayaa ku dhufunay. Kadib waxaad arki doontaa calaamadda iconka people ah. Kadib waa inaa meeshaan si aad dadka aad doonayso inaad fariimaha u dirto meesha inay ku sarnaadaan. Waa in Gmail-kaada ama Outlook-kaada account waa inuu meeshaan ku jiro mailkan. Marka muuqaalkan waxaad ku arki doontaa sida loogu daro Outlook cusub mailkan. Haddaad hor u lahayd sign in ayaa dhihi, haddaad lahayn asaga ayaa sign up sameyn. Sida u sameyn lahayd muuqaalkan ayaad kaga bogan doontaa. Waxaa ku dhufataa mailka. Marka ku dhufato waxaa imaan doontaa meeshaan ay ku qoran tahay intan option ayaa haysta. Inta option ayaa soo gelin kartaa mailkaas. Waxaan ku arki doonaa muuqaalkan ayaa ah Outlook. Asaga ayaan ku sahlan. Outlook ku dhufo. Markaad Outlook ku dhufato waxaa arki doontaa sign in haddaad account Outlook hor u lahayd meeshaan. Haddaadan account Outlook hor u lahayn meeshaan ay ku qoran tahay create one ayaa ku dhufanay. Kadib next ayaa leenahay. Next markaad tiraahdo waxaa ku soo bixi doono account cusub inaad samaysato oo Outlook ah. Marka account-gaas cusub oo Outlook ah waxaa sameynay magaca aad doonayso inaad samaysato ayaa gelini. Kadib waxaa ku xijini ayaa ku xijini. Meeshii Gmail aad dhihi lahayd waxaa ku bedeli Outlook ayaa raacini. Kadib waxaa u dambeyn sidini.com. Marka intaas aad samayso waxaa dhihi next. Markaad intaas bogto waxaa ku soo bixi doono wax loo yaqaano password. Meeshaan geli password adag. Kadib next ayaa leedahay. Marka intaas aad samayso qaybtan shanaad oo Outlook ah waxaa gelisaa magacaada. Magacaada koowaad geli meeshaan iyo magacaada u dambeeyo. Kadib next ayaa leedahay. Marka meeshaan step-ka ugu dambeeyo ee samaysada Outlook ayaa ah in aad geliso waqtiga aad dhalatay ayaa meeshaan gelini. Kadib next ayaa leedahay. Markaad next tiraahdo waxaad arki doontaa account cusub oo Outlook ah oo aad samaysatay. Meeshaan kale waxaan arki doonaa markii aad account-gaas aad samaysato waxaa u baahan tahay marka in aad contact cusub soo geliso icon-kii haddaadi oo ah people. Sidaad soo gelin lahayd step koowaad ayaa ah in asaga aad markaad aragto oo people icon aad ku dhufato waxaa ku soo bixi doono find and pin contacts. Ama waxaa ku dhufataa calaamadan ay qoran tahay 3 dhibcood. Kadib waxaa ku soo bixi doono option-kan. Option-kan markuu ku soo baxo waxaad dooran doontaa meeshaan ay qoran tahay new contact. Kadib waxaad soo gelin doontaa meeshaan contact cusub. Waxaa u baahan tahay meeshaan macluumaadka ay gelini. Tusaale kale waxaad gelisaa magaca, mobile number haddaad hayso. Haddaadan hayn ka tag. Meeshaan waxa uu muhiimsan ayaa ah inaad geliso oo qasab ah. Waxaad gelisaa Gmail. Kadib intaas markaad bogto save ayaa leedahay. Markaad save tiraahdo waxaad arki doontaa xogta qofkii aad macluumaadkaas gelisay. Haddaad u baahan inaad turto halkaas ayaa ku dhufani. Kadib contactii wuxuu ku galay people's icon. Meeshaan ayuu kaaga soo muuqan doonaa. Marka waxaan u baahanaa marka inaan dirno fariin oo mail ah oo aan dirno qofkan cusub. Si aad taas u samayso meeshaan mailka ayaa ku dhufani. Kadib waxaa u dir doontaa email qofka aad doonayso oo contact-aad soo gelisay. Marka step-ka u maraysa ayaa ah step labaad amar doonta ayaa ah in calaamadan plus-ka ah aad ku dhufato. Kadib waxaa ku soo bixi doono qofka ay ka socoto fariinta iyo qofka ay u socoto iyo qoraalkii aad doonayso inaad geliso ayaa halkan gelini. Kadib send meeshaan ayaa ku dhufani. Marka waxaa arki doontaa meeshaan hadda fariintaada waa dirtay. Qofkii hadduu Gmail-kiisa furo wuxuu arki doonaa fariintaada oo adiga u dirtay.
hadduu gudaha sii galno wuxuu arki doonaa fariintii oo dhammaystiran. Muuqaalkan qaybtaas intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa. haddaad ka heshay muuqaalkan like saar, aragtidaada noogu reeb qaybta commentiga si aad ula socoto muuqaalada kale. Subscribe.